بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو هبون أخياري كسو دوادا برامجكيني اوغالك دعدوينك الدنيدا وانا مغالك أفراد ويمكا أنكو يجي دونو حبسي غالي دعدوينك الدونكنا لغو قرأي أبو أكتر دعدوينك عالمك لغو قرأ حبسي غاسو نقضي ميدك اوغوحون حبسي يدا caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika xabsigaas oo lagu magacaabo Kitirama oo ku yaala dalka Rwanda maxaabiista ayaa waxay cuneen meydadka si ay u noolaadaan sidoo kale waxay la ildaran yihiin xaalado caafimaad oo aad u xunxun oo ka jira xabsigaasna wuxuu noqday midka adduunka ugu xun ee laga walaaco hay'adaha internationalka ama kuwa sheegtay inay aadamaha xuquuqdooda ilaaliyaan kuwa kamid oo booqdeena halkan ayaa idinku soo gudbin doona intaana ku soo gudbin hadii ay tahay markii ugu horreysay soo baqato channelkan fadlan subscribe iyo gambalka taabo nala joog xabsiga Kitirama ee dalka Rwanda ayaa lagu soo waramayaa inuu ka jirto ciriiri aad u badan iyada oo kumanaan qof oo maxaabiis ah lagu xiray meel banaan oo lagu talagalay dhowr boqol oo qof ilaa iyo 1,000 qof qiyaasta ayaa sheegaysa in tirada maxaabiista ee halkaasi ku xiran ay tahay inta u dhaxaysa 5,000 ilaa iyo 7,000 oo qof waa meeshii hadda loogu talagalay dhowr boqol oo qof ilaa iyo 1,000 qof meeshii loogu talagalay halka ay wararka qaarna ay sheegayaan inay isku dhaceen intaas oo maxaabiis ah bal ka waran 5,000 ilaa 7,000 oo qof oo maxaabiis ah hadii hal mar isku dhacaan ama istagaalaan hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in sanadkii 2007 waxay ku soo warantay in ay gacanta ku hayso waa xabsiga Rwanda 7,477 maxbuus inkasta oo ay awoodeeda rasmiga ay tahay 300,000 oo qof website-ka Zee News ayaa isna sheegay in dagaaladu ay yihiin kuwa soo noqnoqda waa xabsiga dhexdiisa sababtoo ah xaalad xun oo ka jirta xabsiga iyo maxaabiista qaarkood oo ku jira xaalad qoys ah kuwaas oo lagu khasbay inay cunaan hilibka dadka si ay u noolaadaan daawada hadii ay tahay markii ugu horreysay soo baqato channelkan fadlan subscribe iyo gambalka taabo oo nala joog oo kamid noqo dadka halkani ku xiran aad baad u mahadsantahay